guddiga doorashada heer dowlad goboleed ee Hirshabelle ayaa goordhow waxa ay shaaciyeen jadwalka doorashada 6 kursi kuwaas oo uu ku jiro kursiga Hoob 86 kursigaasi waxaa la sheegay in taliyii hore ee Nisa Fahad Yaasiin Xaaji Daahir uu doonayo inuu soo qaato sidoo kale Fahad ayaa damacsan inuu noqdo gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka baarlamaanka 11 ee Soomaaliya maalinta Axadda ee soo socota 20 bishan February ayaa la shaaciyay in doorashada kuraasta uu ku jiro kan Fahad Yaasiin uu damaacinayo lagu dooran doono magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan maalin ka hor ayaa gudoomiye ku-xigeenkii hore ee golaha shacabka Cabdiweli Muudey loo diiday inuu aado magaalada Baraawe ee gobolka Shabeellaha Hoose isagoo doonaya inuu u tartamo kursigii uu ku fadhiyay sanadihii la soo dhaafay si Cabdiweli Muudey uusan Fahad Yaasiin ugu cariirin tartanka gudoomiye ku-xigeenka golaha shacabka ayaa la sheegay in loo dhaafiyo kursigiisa inkastoo aan weli la dooran haddana Muqdisho ayaa lagu xayiray labada kursi waa kala duwan yihiin yeeshee Fahad iyo Muudey ayaa isku beel ah taasi waxa ay Villa Soomaaliya ku abuurtay cabsi ah in Muudey uu sii difaacan karo booskiisii hore haddii la soo siiyo kursigiisa shaacinta guddiga doorashooyinka heer dowlad goboleed ee Hirshabelle ee kursiga Fahad Yaasiin ayaa waxa ay ku soo aadaysaa xilli ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble uu wado qorshe dib loogu dhigayo doorashada kursiga uu doonayo inuu u tartamo Fahad Yaasiin Xaaji Daahir ee Hoob 86 ra'iisul wasaare Rooble oo u yeeray gudoomiyaha guddiga doorashada heer federaal Muuse Geelle Yuusuf ayaa ku amray in dib loo dhigo doorashada kursiga Hoob 86 oo la filayo inay Beledweynaha ka qabsoonto toddobaadka soo aadan Rooble ayaa gudoomiyaha u sheegay in tartanka kursigan la qaban doono marka uu dalka dib ugu soo laabto xildhibaankii mar hore ku fadhiyay ee Faarax Sheekh Cabduqaadir oo mar kale raba inuu u tartamo kursigan kaas oo hadda dalka uga maqan arrimo caafimaad inta badan xubnaha guddiga doorashada ayaa ka hor yimid qorshaha uu wado Rooble ee la soo marsiiyay gudoomiyaha guddiga doorashooyinka heer federaal waxayna ku adkaysteen in doorashada kursigan lagu qaban doono waqtigii loogu talagalay Rooble oo hore isku qabteen Fahad Yaasiin ayaa xoogiisa isugu geynaya sidii kursigan loo dhaafin lahaa Fahad oo hadda ah la taliyaha amniga qaranka ama ugu yaraan loo gelin lahaa tartan furan waxaa muuqata in qorshaha Rooble ay si weyn uga hor yimaadeen xubnaha guddiga mana la oga sida tallaabada xigta ee uu qaadi doono maadaama tan ay ka fashilantay kooxda madaxweyne Farmaajo oo ciidan badan geysay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa qorsheynaysa in ay soo saarto xildhibaano uu ka mid yahay Fahad Yaasiin Xaaji Daahir oo la rumaysan yahay in uu u tartami doono gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya dhinaca kalena ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa kulan xasaasi ah oo ku saabsan doorashada waxa uu la yeeshay wakiilada beesha caalamka kulanka ayaa waxaa diiradda lagu saaray qodobo dhowr ah oo khuseeya dhamaystirka daahfurnaanta iyo amniga doorashada dalka xilli ay muddo kooban ka harsan tahay muddadii loo qabtay dhamaystirka doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ra'iisul wasaare Rooble ayaa wakiilada beesha caalamka u sheegay in ay ka go'an tahay in doorashada ku soo idlaato xilligii loo qorsheeyay iyo in aan marnaba cidna lagu xadgudbin oo doorashadu noqoto mid daahfuran waxa uu mar kale ku celiyay in aan la aqbali doonin ciidamada amniga ku milmaan arrimaha doorashada ama in ay dad gaar ah u adeegsadaan in lagu boobo kuraas ka mid ah golaha shacabka ra'iisul wasaaraha ayaa ku booriyay ciidamada qaybahooda kala duwan in ay ku ekaadaan kaalintooda sugidda amniga iyo gudashada waajibaadka dastuuriga ah ugu dambeyntii waxa uu carabka ku adkeeyay in ay lagama maarmaan tahay in la xaqiijiyo qoondada haweenka ee 30% taas oo hadda gaarsiisan 21% kulanka ayaa imaanaya xilli beesha caalamka ee cadaadis xoogan ku saarayso xukuumadda in la dedejiyo doorashada gaar ahaan midda golaha shacabka oo horey loogu cayimay in lagu soo gabagabeeyo 25 bishan aynu ku guda jirno ee February ugu dambeyntiina wararka aan ka helino dalka Djibouti ayaa sheegaya in xukuumadda Ismaaciil Cumar Geelle ay saacadihii la soo dhaafay xabsi guri ka dhigtay taliyayaasha ciidamada booliiska iyo militariga dalkaasi taliyayaashan ayaa waxaa looga shakiyay qorshe ka dhan ah madaxweyne Geelle isla markaana ay doonayaan in ay awood ciidan xukunka uga wareejiyaan madaxweynaha muddo dheer dalkaasi xukumayay General Zakariya Sheekh Ibrahim oo ah taliyaha ciidamada militariga Djibouti iyo Cornel Cabdilaahi Faarax oo ah taliyaha booliiska dalkaasi ayaa la dul dhigay ciidamada nabad sugidda iyo ilaalada madaxtooyada kuwaas oo ka bixi karin gurigooda sida ay sheegayaan warar madax bannaan oo halkaasi laga helayo
madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle oo lagu eedeeyo inuu yahay kaliya taliis ayaa ka walwalsan in awood ciidan lagu dhaafiyo xukunka dalkaasi Djibouti oo uu maamulay in ka badan 22 sanadood. waxa uu inta badan qabtaa doorashooyin uu iskaga jeedinayo indhaha caalamka iyada oo dalkaasna uusan ka jirin mucaarid xoogan oo ka hor imaan kara. waxaana la rumaysan yahay in afgembiga la sheegayo uu taageero badan heli lahaa maadaama uu dalkaasi nin kali ah ka talinayo sanado badan.